iyadoo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland si xawliya ay ugu soo biirayeen bahweynta xisbiga kulmiye ayaa munaasabad loogu fantasiyeynayo dhalinyaradii aqoonyahanka ka soo jeeda degmada Allay Badi ee gobolka Gabiley oo ka tirsanaa xisbiga mucaaridka ah ee wadani waxay si rasmi ah ugu biireen xisbul xaakimka kulmiye madashaasi waxay kulmisay siyaasiyiin iyo taageerayaal xisbiga kulmiye ku abtirsada xubno ku hadlay dhalinyaradii aqoonyahanka ka soo jeeda degmada Allay Badi ee xisbiga kulmiye ku soo biiray ayaa iftiimiyay in taageerada ay kulmiye u muujiyeen ay sababtay wax qabadka uu kulmiye dalka ka hirgeliyay intii uu hoggaanka qaranka hayay saraakiil ka tirsan xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiye iyo xubno kamida golaha wasiirada ayaa uga tusaaleeyay mashaariicda taariikhda galay ee uu kulmiye dalka Soomaaliland ka suurtageliyay taasoo ay ka faa'iideen bulshada reer Soomaaliland xisbiga kulmiye wixii hore u qabtay ma xisbiga madaxweynaha soo socda wuxuu ku dulisayaa wixii hore xisbigu qabtay waxyaalihii awra qaban harsanaa iyo aragtida cusub ee xisbigu leeyahay wax soo saarku ka mid yahay adkaynta nabadgelyada ay ka mid tahay tayeynta tacliinta ay ka mid tahay tayeynta caafimaadku ay ka mid tahay miya dhalinyarada waxbuu taray waxbuu geliyey awoodoodii iyo siyaasadoodii meel mariyey iyagana taabirkooda waxa laga rabaa inay kulmiye barbar istaagaan gudoomiyaha ahna murashaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu sheegay وحبلادي وكلها رتاعي إلى المجارسينو قرن الصوماليا وعارف كإعترافه وقرن أدوك يدورها كم يبغى إلى المسكر حيبنا أو المال عارف صوت عنه إنه يقولنا غير مقتشين على وتكسر الدوام إليه وحبنا إنه بالله إلى المقرن كيف بدينه ودمان الصوماليا أي نقطة ده ولا شقيسته يسقطون dalka wadane meel wada jeeda oo ku dhaata Soomaaliland ee aan ku dhaalan gobol ama qabiil dalkeenu wuxuu u baahan yahay aqoonyahan nafta u hura oo aqoontu gaarka u leeyahay dalka wax u qabta dhalinyarada waxa saaran ka in uu weliyo maskaxdooda ay u huraan dalkooda sanadkan waa inoo qoran kulmiyo waxaan nafteedu xaq u mariyo taqalka taqalka oo mariyo dalkeena wanaagsiga dadka isxurgooda ka taayno diinteena oo weeraashado saddexda ay xoogeen isu geeyno ayaa noo mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa yiri sharaf weyn bay tahay in caawid kala soo qayb galo xafladda lagu soo dhaweynayo daayarta runtii ka soo diga rogatay xisbiga qaran ee wadani kuna soo biirtay xisbiga kulmiye aad bay soo dhaweeyeen waad ku maasantiin haddaad ku qanacdeen inaad oo daga maqnaydeen ood ku qanacdeen barnaamijkii xisbiga iyo nin kasta oo aqoonyahana oo dalka ku soo biira kama rabno inuu qabyaalad wax ku doorto waxaynu ku horumarinaa qaran baynu nahay ina doodeedu noqoto walaalkaana ahaadee ina doodeedu noqoto yaa wax qaban kara yaa barnaamij fiican wada yaa dalka daacad noqon kara taasaa muhiimadeedu tahay soo dhaweynana xisbiga la sheegay
annagu dimardan maanta waqtiga soo gaadhnay aniga musharax madaxweynuhu waqti waxa hadda aroos baa joognay caruuskana waa la tiirtiyaa oo loo taliyaa isagoo hadal badan looga baara xaggan u fadhiiso xaggan u soco annagu caruus baa soo gaadhnay xisbiga kulmiye wuxuu tarayo iyo wuxuu qabanayo aqoon-yahanada jamaal iyo professor sabatar iyo siyaasiyiinta wada ka mid yihiin yaa idin sharaxaya waxaan qabanayna iyo waxaan yeelana